sheekay yaro qosole aan ku daro siyaasadda qoliyaha iyaga suugaanta anagoo meel iska fadhina yaa waxa ku imanaya qola mucaarad waa waaqac jira cid ma aha gaaraho aan ka sheegaya ma jirto dabeetana wuxuu ka oranayaa kacabaar sheekaystaan buu markiiba xaggii siyaasadda gelaya dabeetana wuxuu oranayaa dalku maanta badbaadi u baahan yahay intii aynu soo jiray maanta maalin ay ka halis badan tahay ma jirto haddaan maanta la isu iman oo arrintaa aan meesha dib wax loo eegin halis baynu ku jiraa qoliyihiinii suugaanta idinkaa dadka wax u sheegi jiray oo tilmaami jiray idinkana miyaa layidhi mustafeey intaana u jawaabin buu odhanaya dee laakiin waxaan la guranaya waxoogaa laydinka dhibo intaa sida aamusisay isaga isu jawaabaya waa kaa tegayaa kaasi qolo muxaafidaa ku imanaysa wuxuu kaaga bilaabayaa isna maanta maalin aynu ka wacannahay ma jirto wixii xukuumadda soo jiray qoladaa maanta hoggaanka haysa halkay gaadhsiisay cid gaadhsiisay ma jirto haddii abaartaa ilaahay inaga jabiyo abaartaasaa inoogu darana wax kaloo inaga maqani markaasaad ku odhanaysaa waniyow dee haya joornaalada iyo tiifiyada iyo waa la dhaliilayaa si wax u jira isagoo maciyaalkan burburkii intii dabada dhashay aan waxba ogeyne iyo facebookyada iyo waxaasaad eegto nin weyn baa ku moodaya war waxaa ha eegi waxaynu soo marray miyaad garanay maanta nimcaynu ku jira habeenka dama baa tv-ga shidaysa kaanima waxaa fadhiya ninkii kulahaa dalku halis buu ku jiraa mucaaradka ahaayo shir jaraa'id qabanaya wuxuu leeyahay xisbiyada mucaaradka raggii wax ka aasaasay baan anigu ahaa aniga iyo guddoomiyaha iyo laba nin oo kale ayaa qol madow ku aasaasnay xisbigaa maanta dibadda iyo gudahaba aragtaan annaga aasaasnay nin iga xogagaalsani ma jiro xisbiyadii mucaaradku markay meel ay u socdaan aanu garan weynay ee ujeedadoodii fahmi weynay ee aanu ka shakinay waxay nala noqoto inaanu dalka iyo dadka wax u qabanno oo xukuumadda ka mid noqonno oo rag rugcadaaya oo aad garanaysaan baa xukuumadda hormuudka ah aanu dadka wax u qabanno dabeedna cabaar markaad eegtaa waan soo ninku miyaa ninkii ahaynoo intaad shakidabaad mid u diraysaa telefoon oranaysaa waa tv-ga ma daawanaysaa masuu koonaya haa oo ninka ku jira shirka ka hadlaya maan hebel ahayn markaasuu koonaya mee waa hebel oo xisbigii miyuu ka baxay mucaaradka ahaa markaasuu ku canaanaya koonaya dalka miyaad ka maqnay sawtii loo yeedhay odayaashiisa dawladda u geeyna wasiir dawla laga dhigay gaadhigu warta miyaad arag sow ninkii xaggan uu guuray habeenka dabaad sidaysaa kii muxaafidkaaba isna taagan isna wuxuu ka bilaabayaa in badan baanu wax qarina oo aanu dalka afkayaga uga tugo waxaa jira in badan baanu dalka u turayn waxaanu isna xabadda beedka ee gacanta lagu hayo haddaa hadashaan oo waxaa ogtihiin aad sheegtaan way kala daadanaysaa laakiin imika waxaanu ogaanay inaanaan sii aamusi karin oo dalku meel khatara uu ku sugan yahay annagu masaduuq baanu intaasanu aamusnaanayna ummaddu tala qaran bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in laysu yimaada oo dalka la badbaadiyaa marka dambe waxaad ogaanaysaa kan le muxaafidka ahaa ee ima kale waxba qarin mayno meel yar baa xanja ugu dhegsanayd oo meeshii baas laga soo tuuray kan mucaaradka ana meeshuu ku jiray baa qolyo reerkooda oo ka yar dubaalad dheeri soo galeen dabadeetana oo qurba ay wax ka yimid shahaadooyin wax sitaan shirarkii looga yeedhi jiray wixii baa loo yeedhi waayay marka horena dee samir iyo mabaadi' ma jirin meesha nin waliba dambi ugu jiray markii dantii meesha ka baxday ayuu midna xagga mucaaradka u tagayaa midna muxaafid ku tagay marka haddaad adigu labadaa raacdo waad la jabaysaa leannu maxaa yeelay nin meel ku geynaya maaha maxaynu haddaba u baahannahay waxaynu u baahannahay qisa cajiibaa jirto waxaan filayaa xilligii cumar binu khadaab inay ahayd ayaa guddi buu diray amiirkii baa guddi diray wuxuu uhi gobolka noocaasa bal dadka masaakiinta ku nool liiskooda ii keena guddidii baa gobolkii tagtay dadkii bay ku yidhahdeen dadka idinku jilicsan idinkaa garanayee liis soo liskareeya guddidii liiskii loo keenay qofkii ugu horreeyey wuxuu ahaa bara saabkii gobolka iyo qoyskiisii dabeetana guddidii waxay u yeedheen dadkii waxay idhahdeen magacani miyaanu ahayn bara saabkii gobolka waxaa leeyahay waa isaga oo isagaa noogu baahi badan oo 4 habeen ama 5 habeen gurigiisa dab lagama shido maxaa sababay bara saabkii gobolkaba haystay inuu noqdo qofka foqorada ugu lambarwansan waa qof yoolaho meel ku socdo oo ku samhaya meesha ku socdo innagana marka xilka la magacaabo qofka loo magacaabo talaabada ugu horeysa u qaadaa ma aha dawladda waxaase waa inuu horta noloshan hore ku jiray ka guura oo gaariga bedela oo guriga bedela waxaas dhan markuu soo bedelo ayuu carruurtu tagayaa iskuulkay ku jireen waa inuu ka saaraa mid bareefado qaaliga markaa u geeya horta nolosha hore waa inuu albaabkeeda laabaa dhibaatooyinkan haystay ka mid tahay